waxaan tijaabiyey basaska u kala goosho Nairobi iyo magaalada xuduudda ku taala ee Moyale. Baskan waxaa la yiraahdaa Baritum wuxuuna ka mid yahay kuwa aada magaalada Moyale maalin kasta. Waa 1 saac oo habeenimo waxaana ka baxaya magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Eastleigh. Ugu horreyn waxaan istaagnay xaafadda iskuraranka ee Kiamaiko. Halkan rakaab kale ayaa baska soo raacay. Magaaladan caawa waxaa ka jiray jaam culus. Cabbaar baan meel ku xayirneen. Wadadan waa Thika Superhighway waxaana dhisay madaxweyne Moi Kibaki. Waxaan sii marnay dhowr magaalo ay ka mid yihiin Sagana, Narumoru iyo magaalada Nanyuki. Waa halka ay ku taalo buurta Mount Kenya. Horaan ayaan magaaladan muuqaal uga sameeyey wana soo daawan kartaan. Saq dhexe ayaan gaarnay magaalada Isiolo. Maqaayadan ayaan ka cashaynay. Sida caadiyanba aniga waxaan feeraha iska saaray ugali iyo hilib. Shaxaasna waan ka dabageeyey. Isiolo mar kale ayaan muuqaal ka samayn doonaa. 30 daqiiqo kadib halkan oo la isku baaro ayaan imaanay. Waa qasab inaad sharci wadato haddii kale waa xabsi. Safarka ayaan sii wadanay. Baskan waxa uu leeyahay wifi balse inta badan rakaabka way hurdaayeen. 9 saac oo habeenimo waxaan gaarnay magaalada Marsabit. Dad ayaa halkan nooga dagaaday sidoo kale rakaab kale ayaa na soo raacay. 11 subaxnimo waxaan istaagnay tuuladan yar waxaana ku tukannay salaada. Arday iskuul u socoto ayaan wadada ku sii marnay. 1 saac oo subaxnimo waxaan soo caga dhiganay magaalada Moyale. Waa magaalo shidan oo markaas hurdada ka soo kacday. Muuqaalka magaaladan iyo nolosha Soomaalida halkan dhawaan kala socda.